الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن داود يال كسو دوادا warka shanta galabnimo wuxuuna si toos ah kaga imaanaya studio labaad aan ku leenahay magaalada Muqdisho warkana waxa idin soo jeedin doona anigoo Cabdirashiid Sandheer ah qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah qarax dhaliyay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay bar control oo ku taala darajirka daahsoon ee magaalada Muqdisho xildhibaan Zakariya Xaaji Maxamuud Cabdi oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya hadii ay jawaab cad ay ka bixi waayaan baarlamaanka ay keeni doonaan mooshin wasaaradda tamarta iyo macdanta biyaha ee Soomaaliland oo sheegtay inay ku hoolan tahay qorshe lagu soo saarayo macdanta ka jirta deegaanadaas shirkadda duulimaadka xajka ee cumrada ee Ridwan oo Boosaaso ka sameysay duulimaadkii ugu horeeyay ee cumrada ee sanadkan ee shirkadda sameyso daawadayaal intaas waxay ayaan qodobada warkeena ugu door karoon haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan